ولا لك حالتنا haddii aan kaaga warramo meeshaan dadka ku qoray maanta maqasheen oo mataqaanaa oo idaacadaha iyo wargeysyada sheegay ayaa maanta lagu faa'iiday intaas waxaan lagu faa'iiday labaad adiga halkee baad ku sugan tahay anigu waxaan ka suganahay xabsiga dhexdiisa ku jira waxaan ka bilahay 118 qofood oo hadda ku jirta xabsiga ruuxa kale oo ku yaala Mumbai ku yaala Hindiya ma garan dhammaantiin ma Soomaali baatiin Xasan oo ma Soomaali baatiin dhammaantiin awal waxa 120 laba nin ma sheekay dhexdiisa noo dhibatay hadda waxaan nahay 118 dhammaantiin Soomaali baan nahay waa gartay wax intee leeg baad xirantiin muddo intee leeg baad xirantiin annaka waxa group la soo qabtay wala kun Soomaali bishii koowaad ayaa la soo qabtay ma garan waa gartay adigoo kale adiga imisaad xiran tahay Xasan oo adiga ahaan imisaad xabsiga ku xiran tahay aniga waxaan xiranahay 5 sano iyo 8 bilood marka maxaa la idin haystaa marka maxaa la idin ku haystaa eedaha Hindiya ay sheegaysa maxay tahay eedaha Hindiya ay sheegaysa waxaan la gelin waa isku jiraan waxyaabaha ugu waaweyn oo inoo haysta waxay yihiin Hindiya soo ataagnay kadibna layni oo nalay mataqaanaa burburin hanti dawladweyne oo ay burburiyeen wax noocaas oo ilaa 12 qofood qof loo haysta ma garan marka waxaas maxaa ka jira sax muu yahay mise waa waxay Hindiya iska dhowdhoobaysa xaqiiqda bal arintaas la idin haysto wax naga dhe wala arintaas wax ka jira lama arko wax aan ka galnay oo mataqaanaa meesha ka jira hadii la soo duubo wax yar weey wax ka jira waxaas lama arko wax ay soo duubeen weey cid wax laga tiraado oo mataqaanaa laga difaaco dambigaas beenta oo dadka laga saarayna waa weynay hadii ay dawladda xageeda tahay hadii mataqaanaa hay'ad kale xageeda mataqaanaa hay'adaha xuquuqda u doona in laga xisata mataqaanaa dambigaas beenta oo dadka laga saaray waa weyn laba garan marka arintan la xiriiray in konton Soomaali dil toogasho lagu xukumay maxaa macluumaad ka haysan miyaad ka warqabtaan walaaw adintaas waxay soo gaartay maanta goobta markaad tukanay meeshaan ku xiranay waxaan soo gala joornaalka ayaa waxaan ku aragnay konton Soomaali mataqaanaa dil ay u qorsheynayaan 68 kalena xasajayn ay qorsheynayaan intaas macluumaad ka dheer ma hayno ma garan marka dadkaasi ma idinka xabsigan ku jira 118 ruux ba mise waa Soomaali xabsiye kale ku jira annaka way 118 way marka kontonkan dilka toogashada lagu xukumay la yiraahdo miyaa la sii carab baabay mise iskama garanaysaan 112 kiinan iskama garanayno qof yahay ma naqaan iskama garanayno ma garan miyaa la idin kala soocay idinka mise hal meel aad ku xirantiin ma qaar dambiye waaweyn galo meel gaar lagu xiraa jirto kuwa meel caadi ah lagu xiray mise hal meel ku wada xukuman ku xirantiin hal meel aan ku xiranahay wax la kala soocay lama arko hal meel aan ku xiranahay halkii noo haysteen isku mid ayaa Hindiya agteeda ka ahay isku si ayay noo soo qabteen waxay kala soocay waxay calaamadeen lama jiro ma garan wax haween ma idin ku jiraan marka dhowrkiinan meeshaan haween lama socon meeshaan lama socon haween lagu jiraan waa gartay marka xukunkan oo kale sidee u aragtaan in dil toogasho la idinku xukumo sidee u aragtaan haddii waa dareemi kartaa sida waan karnaa marka dambigiina aan galnay dambi toogasho keeni kara ama u dhawaan kara ma ahan waa waxa dibigo mataqaanaa nalagu codlayso ma garan dambiga annaka ay noo haystaan nama nagu soo eedeeyeen waxa dil toogasho ama u dhawaan kara ama xisbeen xataa keeni kara ma ahan annaka waxaan kugu eedeeyay burcadna waa kideegdi waa afduubad qofka u mudana waa 7 sano afduubeed adduunka dhan bay burcadda ku xiran tahay annaku intaas wax ka dheeriye ma aanan samayn burcad mataqaanaa waxay nagu soo eedeeyeen burcadnimo mala keeni karto dil iyo xasdaan midna marka way nagu codlaysteen haddii mataqaanaa aan haysano dawlad iyo mataqaanaa dad mataqaanaa garab taagan oo luqadii yaqaano nimanka laga difaaca uma aana dhawaanin ma garan da-aada dadkiinan Soomaalida ee xabsiga ku jira imise u dhaxaysaa kiina ugu yar waa imse jir kan ugu weyn waa imse jir waxa ugu yar 22 jir waxaana ugu sareeya 50 jir waa gartay dawladii Soomaaliya ee aad wadankeeda ka dhalateen maxaad leedihiin oo arrinkan la xiriira maxaad dawladda ugu baaqaysaan annaka inay horta barnaamijkaanba waxaan markaan cadayn ugu baytahay 4 sano 5 sano u xirnay
nimanka nagu doodaya wax caddeeya laguma sahin barnaamijkan annaka waxaana geliyaba safaaradda soomaaliya ee hindiya ku xiran baa saxiix laga qaado waxay tiri dembigii nafirta waxaa la idiin qaadaya soomaaliya ma garan ma safaaradda soomaaliya ee waddankaasaa sidaa idin tiri saasay nagu tiri meeshay noogu tiri safaaraddu qoraalka miyay akhriseen markay dil toogasho idinku xukumaysa qoraalka maad akhriseen yani safaaradda annaka luqadda ma naqaan ma naqaan safaaraddu waxay noo keentay warqado ingiriis ku qoran waxay nagu tiri suulka saara saxiixa dembigiina kirta markaa waa la xukumayaa xukun yar soomaaliya muqdisho aynu jeedaynaa ma garan marka qoraalkii waxaad ku qornaa ee aadan akrin karin baa waxay noqdeen dil toogashaa la idinku xukumaya idinkan waxaa u malaynayseen muqdisho la idin xukumaya maya qoraalka waa noo akriyeen laakiin waxay yidhahdeen annaka lagu kalsoonaada qoraalka waa noo akriya waxay yidhahdeen meesha wax ku yaalay anigoo maskaxdeedu taan tahay oo aan waalayn dembigeyga aan garanayaa aan ku yaala wax noocaasa ku yaalay luqada ingiriiska aniguma aqaan laakiin waxaa noo turjumay safaaradda wax noocaasa meesha ku qornaa markay noo akriyeen waxay yidhahdeen saxiixa ma garan intuu wax ka khaldnaya marka xasanow hinduda waxa ay leeyihiin qaar kamid a maxaabiista dembiga waa ay qirteen marka intay wax ka khaldan yihiin halkee bay waxa arrin siray ka qoransan tahay hindiya sax waaye warqada qiraalka waxa qaaday safaaradda waxay u geysay hindiya maxkamadda geysa ma garan marka dembigan in la idin saaray yaad ku eedeynaysaan waxaan ku eedeynaynaa safaaradda soomaaliya aan ku eedeynayna hindiya joogtaa waa gartay xasan qof kale maad igu dhiibi kartaa waa kala hadal haye igu dhiibaya haye abo walaal marka hore magacaada saddexan idaacadda mustaqbal magaalada muqdisho kula hadlayso bal magacaada saddexan marka hore abo macaane waa ninka la yidhaahdo waxa weeye maxamed saciid yuusuf yarkii marka hore kula hadlayay waxa waa sakaafi cabdi jimcaale marka abo macaane sida weye hadda kolleyba sida xasan kuu sheegay weeye waxba kama bedela niyo anaku niman waxaan nahay kolleyba dadka bini aadamka qalad waa kolleyba anaka qaladaanan galnay waana nala ku eedeeyey laakiin niyahow arrintaas waxay noqotay wax aanaan maqal arrintaasna waxaa fududeeyey aada maqasheen maalada safaaradda oo joogta waddankan oo naloo soo ma oo niyo dadkaa nagu jirta ma garata walaalow waa garta dembiga maad gasheen ma sax baa in waxyaabaha hindida idinku eedeynayso wax disheen ood dad weerarteen ood burcadbadeed tihiin ma sax baa maya annaka mid waa malaynayna wax isku day waa wax macquula in annaku cid aan dilnay ma jirto dee kolleyba waxaana kamid nahay dadka kiiskaas loo haysto oo adduunyada daalaheeda dacafeeda kala duwan ku xiran aan ka tirsannahay dee kolleyna mana malaynayno qof nooca oo dil loo haystaa inuu jiro 50 qof oo 30 iyo waxaa dhimatay markii operationkiina la ku qabtay 36 qof 2 qof jeelkay ku dhimatay 50 hadda waa mid kuwa hadda aad maqlaysiin oo haddeer la cirib tirayo haddee 79 kale oo ka hartayna ma malaynayo inay iyaguna rajadayihiin ma garad waa gartay imise sana adiga xiran tahay aniga waxaa soo xiray bishii 2 ee 2011 6deedii aan jeelkaan soo galay ilaa hadda xaaja halkee laga soo qabtay xilligaas adiga aniga waxaa laga soo qabtay meel u dhow dekeda ceelmacaan agteeda xilligaa maxay baad qabanaysay maxaa xilligaa halkaa ka heshay xilligaas iyo dad ka kalluumaysataa oo dee badda ka shaqaysanayo muddooyi dee anigu de dadka soomaalida waad garanaysaa dee kolleyba xeebaha soomaaliya dee dawladnimo kama jirto cid difaacdaana ma jirto laakiin anigu nin kalluumaysataa ayaan ah oo dee meeshaa joogay dee kolleyba doon qofkii wato badda lagu arka waxunbaa la isaga tiimbareeyey de tiimbarihiina dawlada hadda iga daba timaado ama loo yar ama cid iga caawisa ma aysan helin dee ciddii igu dhaweed oo aan islahaay arrintaas way kuu fududaynaysaana waxay ahayd safaaradduna waxay ii horteeday waxaanaba shaqo ku lahayn ma garad waa garta wax ka badan 5 sana xiran tahay weli mas-uul dawladda ka tirsan inta idin yimid xaaladiina wax ma idinka xog wareystay waxaa noo yimid bishii 2 hoteelka nagu soo booqday xeeraalyaha qaranka guud iga la yidhahdo inay hebel cali nin suuqaana sheegay iyo safiirka iyo kolleyba wafti la socday waxayna noo sheegeen inay dib noogu soo laabanayaan
nagu soo laaban hawsha wax badan ay kala socdeen oo xoog ka ahaayeen marka cid kalena ma aanan arag bishii October sanadkii hore ee dhamaaday 28 halkan waxaa booqasho ku yimid madaxweynihii Soomaaliya waxaa kale oo yimid hadda bishii dhamaatay dabayaaqadeedii wasiirkii arrimaha dibadda bishii kasii horeysay dhaxanteedii waxaa madaxweynaha galmudug dhammaantoodna isku soo duubo cid arrinteena ka hadashay ma ay jirto ma garad waa gartay xaaladiina dhanka nolosha waa sidee marka xaaladiina guud waa sidee nolosheena niyow aaday u liidataa xaaladeena mid qurux badan ma ahan 6 sano dhaalka ugula hadlaynaa kontrabaan weeye dowladana haysaa uguma talagelin inaan dadkeena la hadalno oo waxa yidhaaho nagu ogtahay ma jirto nolol ma jirto daawo ma jirto kolleyba ciddii aragtay inbaa aragtay dhalinyarada hindiya ku xiran waxaa sanadka hadeer bilowgiisii website-ka aad ku aragteen aan u malaynaa nin Soomaaliya ka tirsan dhalinyarada meeshan ku xiran oo si tacdara ugu dhintay jeelka dhexdiisa ma garata oo la yiraahdo Ahmed Khaliif Maxamed la yiraahdo Maxamed waa gartay marka dawladda Soomaaliya maxay baad leedahay dawladdaadii aad ka dhalatay maxay baad leedahay caawa dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa arrinta inay wax ka qabato kolleyba anaku arrintaas hadda sida ay hindiyaanku u shaqeeyeen anaku saakay maanta markaan tukanaynay ayaan report journal soo baxay wadanka oo la yiraahdo Hindustan iyo Times of India oo jeelka yimaada ayaan ku aadnay reportkeena arrintaas waxaan ka codsanaynaa dawladdanadu in ay wax ka qabato kolley wax qabad allaale inay wax ka qabato oo safaaradda arrintaas kolley ayadaa wax ka og meesha aan gaarsiisay arrintaas haddii ay wax jiraan ku anfacyo qaadatay 118 qof oo Soomaali ah in laga soo qaado waxaan jirin waa wax aad u weyn in ummadda Soomaaliyeed oo walaalahana arrinta ay noo gudmadaan dawladdu ay noo gudmato arrintaa wax laga qabto xafiiska meeshan ku yaalo oo guriga ummadda ku yaala dadka jooga oo dhiiggeena cunaya in la ka qabto oo dawladda ka codsanayna iyo raaxda iyo cidda ay qusayso iyo dadka hindiyaanka oo kiisaska nagu eedeeyay oo dad ganta oo noo soo maray xafiiska calanka Soomaaliya ka babanayo dadka jooga oo haddana waxaas aad nagu dhigayo oo aad ka dhegaysateen in aan kiiskeenii qiranay safaaraddanaduna naga keentay dhibka ay leedahay waad malay kartaa muwaadin la leeyahay dawladdiisii horkacaysa in la dilo taas marka waxaan ka codsanaynaa arrintaas in laga hortago oo noo istaago weli wax ka qabaday leedahay saan is leenahay ilaahay subxaanahu watacaalana waa la tala saaranaya sidaas ay jirta walaal intaas aan codsanaynaa adduunka soo maraa kulli waa dhadhamisee adduunka soo maraa kulli waa dhadhamisee waxaan soo masiiba ayaa meeshan yaali yaa maari jiraye ayaa joogta maante magace intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku dhintira waxaan soo masiiba ayaa meeshan yaali yaa maari jiraye ayaa joogta maante magace intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku dhintira magace intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku dhintira magace intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku